الله وين ربي بوحدات وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيقة لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وحن ودنا تحنيه أن وهذيني مقعيد إلهي سبحانه وتعالى، وأن مدو الباء أنت إلهي سبحانه وتعالى نوفض ذيو أن شرحاتكم من كبحنيني. وحن هذا كهذي دونا مقع إلهي سبحانه وتعالى إياه الجبار waxay noqonaysaa in Allah subhanahu wa ta'ala uu yahay u kabe oo ku kabayo wax kasta oo noloshaada uga baahan tahay, wax kasta oo ay ruuxdaada u baahan tahay, wax kasta oo jirkaaga u baahan yahay, wax kasta oo ka halaaba ama ka jaba ama ka hoos dhaca, Ilaahay subhanahu wa ta'ala asaga ku toosinaya oo ku kabaya. Ilaahay subhanahu wa ta'ala marka uu wax ku kabayo asagoon daawo isticmaalin ama ku daaweynin buu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku kabaya. Yani Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa u kabe aan u baahnayn inuu daawo ku siiyo, si toos ah wixii ka maqnaa deeq ahaan ku siinaya, kuugu deeqaya, ku fududeynaya, wadadii aad ku heli lahaydna ku sameynayo. Sida darteed Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax kasta wuxuu isugu xiray oo isugu kabkabay sida ay isugu haboon yihiin oo isugu aadayaan. haddii cabsi ku hayso waxaad u baahan tahay deganaansho, Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa ku keenaya oo deganaantii maskaxdaada ku kabaya. huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minina liyazdadu iimanan ma'a iimanihim. xaalad marka ku jirto cabsi ah oo walwal ah waxa u baahan tahay inay ku timaado xaalad kale oo lagu wareejiyo oo ah deganaasho iyo xasilooni. sida darteed waa ducada mar walba aanu salaada ku akhrino, waa markii labada sujuudood dhexdooda ducada aan akhrino rabbi ighfir li warhamni wajburni, oo ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay dambi dhaaf iyo naxariiso iyo irzaaq iyo toosi oo hidaayad Ilaahay inuu ku siiyo, iyo Ilaahay uu ikab waxa laaleeyay wax iga kala go'ah ama si uu iga noqda, Ilaahay subhanahu wa ta'ala asaga kaba oo ah. Nabiga calayhi salaatu wasalaam aad buu ducada ugu akhrin jiray, sujuudiisa iyo rukuucdiisa wuxuu ku akhrin jiray subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya wal 'azama. oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u qiraay inuu yahay ilaaha umadiisa, khalqigiisa, uunkiisa oo dhan wixii ka dhiman u dhameystira oo siiya. sadarteed Ilaahay subhanahu wa ta'ala siyaabo kala duwan buu uunka u abuuray isugu kabay. waxyaabaha uu isku kabay waxaa kamid ah ruuxda iyo jasadka. ruuxduna gaar buu Ilaahay u abuuray, jirkii markii la abuuray baa la isku kabay, waana laba shay oo kala maarmaynin oo aan kala fuqaynin ilaa la gaaro waxa la yiraahdo geerida. يعني markay geerida timaado, geerida lagu sheegayo waxa weeyaan kabkii isku xirnaa ee ruuxdii iyo jasadkii la isu keenay ahaa baa markay kala go'aan oo kabkaas meesha ka baxo baa waxa la yiraahdaa waa dhintay ruuxan. ruuxa markuu dhinto marka naftiisii iyo jirkiisii la isu keenay la isku kabay baa la kala jaray. markii la jaray waxay isu wareegtay inay naftii iyo qofkiiba la yiraahdo wuu dhintay qofka. sida darteed Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu dadkiisa iyo khalqigiisa ku qasbay oo ku abuuray inay asaga u hoggaansamaan ayagoo raali ah ama ayagoo ku qasban. waa kan Ilaahay quraankiisa uu ku yiri walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karha. sida darteed qofkana waxa laga rabaa asaguna maadaama Ilaahay diin uu soo dejiyay inuu aqeedadiisa isku kabo, Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu aamino, akhlaaq fiican uu yeesho, Ilaahay uu rumeeyo, waayo naftaada ruuxdaadu waxay u baahan tahay in la kabo. waxyaabaha kale oo Ilaahay isku kabay waxaa kamid ah ummadda xiriirka la leedahay, dariska xiriir baa la leedahay, waalidka xiriir baa la leedahay, qaraabadaada xiriir baa la leedahay. waxaas oo dhan waa wax iskabaya, nolosha bini aadamka oo dhan ay ku dhisan tahay. waxyaabaha Ilaahay uu isku kabay waxaa kamid ah wax walba inuu u sameeyo lamaano oo rag iyo dumar wax walbana ay isu yeesheen lamaane. wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. waa meesha ay ka imaanayso aabaha iyo hooyada isu tagooda inay ilmo ka dhalanayaan. ilmahaas ka dhalanayana waa markii labadoodii la isku kabay natiijadii ka timid oo ah ilmo inay meeshaas ka yimaadaan oo noqon kara lab iyo dhadig midkay noqdaanba. Ilaahay wuxuu sidoo kale isku kabay qofka bini aadamka iyo baahidiisa iyo xalkeedina waa la isku kabay.
qofkan wuxuu dareemayaa gaajo waxaa xalkeedu noqday inuu cunto helo wuxuu qabaa baahi jinsi ah waxaa loo sheegay wadada xalaasha uu ku gaari karo wuxuu qabaa cabsi waxaa loo sheegay siduu deganaanshaha uu ku heli karo xataa kabka caadiga ah oo jirkaaga ku dhaca haddii meel wax ka dilaacaan dhakhtarku wuu ku imaanayaa jirkaaga unbuu isku celcelinayaa ma ahane asagoo wuxuu kuu keeni kara lama arko laakiin ilaahay subxaanahu watacaala baa dhakhtarkaasu cilmigiisii iyo aqoontiisii waxay u gudbaysaa in ilaahay subxaanahu watacaala wax jirkiga wixii ka halaabay intuu isku celiyo oo isu kabkabo uu meeshaa ku keeno haddaa xataa u timaado nolosha asaasiyaadka ay ku taagan tahay waa xisaabta marka aad maqasheenna waa wax la isu kabay 1 laga dhigay 2 laga dhigay marka wax la xisaabinayana mitir iyo kilogram iyo intaas wax lagu xisaabiyo waxaas oo dhan marka wuxuu soo kabkabay si ilaahay subxaanahu watacaala uu khalqigiisa wax ugu sahlanaadaan haddii wax yar ay uga hoos dhacaanna meesha ay u doonanayaan ay garanayaan sidaa darteed qofka muslimka waxaa la rabaa inuu asaguna qayb weyn ka qaato doorkiisa wax kabista oo ah adiga waxaad ka shaqeynaysaa inay noqdaan ficil wanaagsan oo khayr ah ficilka wanaagsan oo khayrka ah dadka kale wax u tarayaan qawlun macruufun wa maghfiratun khayrun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun haliim sidaa darteed qofka inaad hadal wanaagsan ku dhahdo sadaqa bixiso wax siiso waxaad ka baysaa qof aad arkayso inuu u baahnaa hadal wanaagsan ama uu u baahnaa wax siin wanaagsan waxaa kaloo laga rabaa inaad ka shaqeyso ummaddu inay rajo leedahay hadaa aragto qof rajadiisa ka sii dhamaanayso waxaa la rabaa inaad rajada u soo celiso aad rajadiisa ka soo kabto oo aad tiraahdo war ilaahay subxaanahu watacaala naxariistiisa ha ka quusanin laa taqnatu min raxmatillaah haddii mas-uul aad tahay waxaa laga rabaa meel kasta oo fasaad ka jiro inaad inta ka saarto aad islaax u bedesho suubanaan iyo wanaag aad u bedesho oo haddii qof aad noolayso waxaa la mid tahay qof dadka oo dhan oo nooleeyey sidaa darteed waxaa laga rabaa inaad mar walba kabto bulshadaanu sida jiritaankeeda iyo amnigeeda iyo nolosheeda iyo wadajirkeeda uu u xoogaysan lahaa waxaa kaloo laga rabaa adiga markaad muslim tahay cilaaqada ilaahay subxaanahu watacaala kaala dhexaysana inaad kabto see ku kabaysaa inaad ilaahay daacad u noqotaad ku kabaysaa inaad jidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam raacdaad ku kabaysaa waxaa kaloo lagu faray inaad ku kabto إحسان الناس سميسو أو دتك أو ناجسو إلهي وكان قرآن كيس كلها وأحسن كما أحسن الله إليك يعني وناجي وناج السماء سيدا أذيك بإلهي سبحانه وتعالى وناج كوجو سمي وحكستنا إلهي سبحانه وتعالى مخلوقاتك أسمي أو دان بوحي أسمي هبك يكوكل الله حن لهاين وحي كلمنا الله رادين لها حتى النباتات كصباح يوحلو سمي هبك يكوصبح لهاين فسلكه ينابيع في الأرض وحكلو لجو سمي diinta adiga ku soo gaaraysa waxay ka saaraysaa mugdi waxay ku saaraysaa iftiin sidaa darteed ilaahay subxaanahu watacaala koonkiisana dadka uu soo sakhiray wasakhara lakum ash-shamsa wal-qamara daa'ibayni wasakhara lakum al-layla wan-nahaar sidaa darteed dardaaranka la rabo inaad qaadato waxa waaye doorka bulshada aad ku leedahay waa inaad noqotaa kabe haddaad rabto inuu ilaahay adigana kuu kabo wallahu tacaala aclam wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu isaga waduudan tashiga lala wadaagayne isagan wuxuu doonayaba cidi la waastayne waxba kama qarsoono qalbigu wahan hadduu yeesho wixii waliba wow waadax iyo waasac maalinaahe alwakiilu magaceesu waa warisaan dhimaane